waa maalin aad u qurux badan waxaanu ku sugannahay maxkamadda horteeda muddo ka hor waxaa galay delegatekii Kenya haddana waxaa noo yimid oo na soo gaaray waqtigooda qaadagaana uga mahadcelinaynaa qaar ka mid wafdiga ka socota Soomaaliya oo ay wajiyadooda ka muuqato runtii isku kalsooni iyo dhiiranaan bal aan ku bilaabo ambassador bal dareenkiina ka war anaga dareenkeena maanta aad buu u fiican yahay sida ujeed hawada way fiican tahay loohiradeen waa diyaar marka maanta wacdaraha aan dhigaynaa idinkana maaragtay live u daawada shacbigana live ugu gudbiya insha Allah hil qarankaasi wuu ku jiraa Somali Cable hadaan nahay inaan hididiladaas u muujino Yusuf Garaad waad wada garanaysaan waa nin runtii saxaafadda wax badan ku soo jiray erayadana aad u kala xusha Yusuf dareenkaaga dareenkaygu waxa weeye midka Soomaaliya oo dhan aan qiyaasay in maanta ay qabto oo ah in case aad u culus oo wadanka Soomaaliya territoryga Soomaaliya go'aan looga gaari doono mustaqbalka saan rajeynayno in uu halkan ka soo bixi doono laakiin hadda waa hordhici hore oo ah Kenya oo leh maxkamaddu in ay gasho maaha wada hadalkan waa in Soomaaliya iyo Kenya ay ka wada hadlaan maxkamaddu naga dhex baxdo oo doodooda ay shalay jeediyeen marka hadda daqiiqadaha soo socda waxaan sugaynaa waxa weeye dooda qareenada Soomaaliya ay jeedin doonaan oo taalidigeeda ah oo ah in maxkamadda lagu kala baxo aad iyo aad xeer ilaaliyaha qaranka oo dabcan wafdiga raggii hogaaminaya ah mudane xeer ilaaliye shalay Kenya dood dhiiran sidii niman maaragtay xoogaa gool dhaliyay oo kale rawaxaan maanta maxaad filaysaan bismillah waxaan filaynaa waxa ummadda Soomaaliyeed ay filayso oo dhan waxaan filaynaa guul ka weyn midda aad shalay ka arkaysay Kenya iyo farxad ka badan laba arrimoodba waan guushaas waa ku gaari karnaa number 1 ilaahay anagoo kaashanayna oo iyo talabaad oo ah dacwadeena oo runtii saldhig adag oo qaanuuni ah leh doodayada oo ku fadhida saldhig adag oo qaanuuni ah labada dartoodba waxaan kuugu bishaareynayaa ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynaynaa in ay maanta wax badan oo dhagahooda ay ku farxaan ay maqli doonaan sababtuna waxa weeye ilaahayna anaguna la jira qawaaniinta caalamiga una anaga ayay caawinaysaa qareenada iyo teamka khibradda awla ama expertiska oo dacwadan gacanta ku hayana waa kuwa aan kalsooni buuxda ku qabno aad iyo aad baan mahadsantahay aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina waa idin fasaxaynaa waa la idin sugayaa goosha dhaliya baan leeyahay guulaysta insha Allah